xarumaha la tacaalida COVID-19 iyo shaybaarada guud ee dalka qaybihiisa kala duwan waxa ay xaqiijiyeen in korar ku yimid dadka laga helay ama uu soo ritay xanuunka COVID-19 labadii usbuuc ee ugu dambeysay. warbixinta xaaladihii ugu dambeeyay COVID oo aan ku kala qaadi doono 1 ilaa 31 bishii January 2021 iyo 1 ilaa 11 February 2021 si aan dadka u tusno hoosta ugu xariiqano isbedelka yimid iyo kordhac ku yimid. tirada la baaray 1 ilaa 31 January 2021 waa 14,648 qof. bisha February 1 ilaa 11 2021 inta la baaray waxay ahayd 5,996. xaaladaha cusub ee soo kordhay waa 98 qof January 1 ilaa 31 February 1 ilaa 31 ilaa 11 kana waa 133. waxaa lab ah 59 dhadigna waxa ay 29 baaritaankii January 1 ilaa 31 sidoo kalena February 1 ilaa 11 dadkii la baaray 133 waa lab dhadigna waa 56. xaaladaha soo kordhay goobaha ay kala joogaan haddaan idin dul maro. Banaadir January baaritaankeedu wuxuu ahaa 1 ilaa 31 43 qof. February 1 ilaa 11 kana waa 161. Somaliland waa 49. February 1 ilaa 11 kana waa 14. Puntland January 1 ilaa 31 inta la helayna waa 5. February-na isbuuci 1 ilaa 11 10. Jubbaland January waa 1, February waa eber. Hirshabelle waa eber January, February-na waa 4. Koonfur Galbeed waa eber 1 January, February-na waa eber. Galmudug waa eber January ilaa 31 iyo February 1 ilaa 11 waa eber. wadarta guud ee January la baaray wadanka waa laga helay cudurka xaaladda waa 98. February-na waa 189. da'da dadka laga helay marka haddaan fiirino da'da 20 ilaa 39 waxaa waaye 42% oo ah January 1 ilaa 31. February 1 ilaa 11 waa 140. da'da u dhaxaysa 40 ilaa 49 tan January waa 55%. February-na waa 48%. inta ka weyn 60 waa boqolkiiba January waa 3. February 1 ilaa 11 waa boqolkiiba 1. wadarta waa boqoleydii markaan ka hadalno da'dooda. tirada guud ee dadka laga helay January 1 ilaa 31 waxa waaye 4,814. February 1 ilaa 11 waa 5,013. tirada geerida bisha January 2021 waa 2. February 1 ilaa 11 tirada dhimatay Allah u naxariisto waa 12. tirada guud ee dhimashada dalka
January kowdeeda ilaa 31 waxay ahayd 132. February kowdeeda ilaa 11 waa 142. tirada guud ee bogsootay guud ahaan waa 3720. February kowdeeda ilaa 11 waa 3733. waxaa xaqiiq ah oo aan qirayna in dhammaan guulihii laga gaaray ka hortagga caabuqa coronavirus ay hogaaminayeen shacabka Soomaaliyeed oo gartay inay badbaadiyaan naftooda, mudnaanta ugu weyna siiyeen in la yareeyo faafitaanka cudurka. Soomaaliya ayadoona haysan tallaal, awood baaritaan oo ballaaran oo ku filan, isbitaallo casri ah, sariiraha sida gaarka ah ee badbaadinta bukaanada u soo rita caabuqa COVID-19 ayaan haddana ku guuleysanay inaan yareyno oo aan ka hortagno caabuqa coronavirus iyo faahfaahin. waxaan rabaa inaan bulshada la wadaago inay muhiim tahay ka hortagga. waxaan rabaa kaliya inaan ku daro in Soomaaliya imaan doono tallaalka haddii alla idmo. tallaalka wadanka la keenayo oo naloo yaboohay sida wadamo ilaa 120 ee adduunka ka mid ah la siiyo waxaa la dhahaa AstraZeneca UK. waa tallaal WHO iyo khubaro badan soo baartay shalayda ugu dambeysana taariikhda 11 la ansixiyay.